mar kale waa aniga waa Dr. Yaxya ugu barateen muuqaalada ku saabsan caafimaadka indhaha iyo aragga. Isbuuca maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa eyelid twitching ama baararka indhaha break indhaha ka siis daawasho wacan. Eyelid twitching waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah baararka indhaha murqaha ku jira oo markaa xaalad ku sababaysa activity badan ay sameeyaan dhaqdhaqaaqooda aad u bato. Sidoo kale xaaladda haddii aad u badato marka qaar normal ayay iska noqon kartaa oo saacado gooni ayay noqon karaan kadibna qofka waa ay ka bixi kartaa. Laakiin marka qaar waxaa suurtagal noqon karta inay sababto xaalada blepharospasm oo ah in muruqa indhaha ay isku dhagaanba dhab ay isku dhahaan ay kala bixi waayaan. Marka xaaladaas waxay noqonaysaa in il gooni la lahaado. sidoo kale xaalad kale oo ayada la xiriirta ayaa jirta oo yiraahdo hemifacial spasm oo ah qayb ka mid ah wajiga in ayada dhan ay isku xirmato ama qalal ay ku dhaco. sidaas awgeeda ayada laftirkeeda waxaa loo baahnaanayaa in dhakhtar indhaha ama la xiriirtid oo xaaladdan il gooni loo lahaado. laakiin haddii aad isku aragtid kaliya in baararka indhaha break ka siinayaan oo loo yaqaano eyelid twitching ama caafimaad ahaan ereyga loo yaqaano eyelid myoclonus, waxyaabaha sababi karo waxa ugu badan oo la sheegay waxay tahay inay sababto stresska ama walwalka mid loo yaqaano. mid labaad oo sababi karta waxay tahay eye fatigue, daalku kala qofka daal uu dareemayo inay sababto. arrinta saddexaad oo sababi karta waxay tahay dehydrated haday noqoto biyaha jirkaaga haddii uu ka yaraado. waa saddexda arrin ugu muhiimsan oo sababi karto xaaladdan loo yaqaano eyelid twitching ama baararka indhaha break aad ka siisid. videoan waxayna kugu soo gudbin doonaa talooyin kaa saacidayo in ay kaa yaraato xaaladdan loo yaqaano eyelid twitching ama baararka indhaha break aad ka siisid. talada koowaad waxay noqonaysaa in aad iska yaraysid stresska. haddii walwal aad qabtid oo kale inaad ku dadaashid walwalkaas inaad iska yaraysid, oo marka walwalkaas iska yaraysid waxaa la arkaa marka qaar in ay kaa yaraanayso xaaladdan. talada labaad waxay tahay haddii aad u isticmaashid maadooyin yiraahdo caffeine-ka ama shaaha ama kafeega laftirkeeda in isticmaalkiisa aad iska yaraysid haddii aad isku aragtid xaaladdan. dadka qaar waxaa arkaysa aniga maya hal koob bas maalinta cabaa wax badan ma cabo. laftirkeeda waxay sababi kartaa dadka qaar in halkaas koob uu cabo in ay qofkaas uu xaaladdan ay ku badato. marka waa muhiim in uu iska yareeyo maadada caffeine-ka ah. arrinta saddexaad waxay tahay in uu jirkiisa nasiimo siiyo. markuu jirkiisa siiyo laftirkeeda waxay ka saacidaysaa qofka in xaaladdan ay ka yaraato. hababka ugu muhiimsan oo daalka isaga yareyn karto waxay tahay inaad habeenkii xilli hore aad seexatid. sidoo kale markaad habeenkii oo kale aad sariirta aad fuushid oo kale in aad iska yaraysid waxyaabaha mobilka ama waxyaabaha ku mashquulinayo inaad iska fogeysid. talada afraadna waxay tahay in haddii qofku uu qabo allergy oo kale in uu allergigaas daawooyin haddii ay jirto antihistamine oo kale inuu isticmaalo. sidoo kale haddii uu cold compress ama baraf ama wax qabowga indhaha iska saari karo inuu iska saaro. laftirkeeda waxaa la sheegaa haddii ay kugu kacsan tahay allergiga inay lug la leedahay inay xaaladdan ay kugu badato. talada kale oo aan ku dari lahaa waxay tahay haddii uu cabidda biyahaaga uu yaryahay oo kale inaad biyo badan cabtid oo maalinta haddii litir cabaysay inaad 2 litir ka dhigtid. laftirkeedu wuxuu kaa saacidaa in xaalad dehydrated ama qalalka jirkaaga inuu yaraado oo biyo yeesho. sidaas awgeed in xaaladdan ay kaa yaraato. intaas waxay ahaayeen talooyinka ama la xiriira xaaladdan oo haddii aad iska yaraysid kaa yareyn karo xaaladdan. adiga ahaan talooyinkan aan soo sheegay midkee aad kuu caawisay qaybta commentiga nagula wadaag. waxaa inoo baahan lahaa insha allah video xiga.